بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة الماعون سورة ألابتا waxay ku soo degatay makiyah aw ama madaniyah. Makka iyo Madiina ayay ku soo degatay ayaa la yiraahdaa. Marka suuradan madaniya ayay loo batay inay ku soo degatay magaalada Madiino. aayaadkeeduna waa 7. Bismillahir Rahmanir Rahim. Suuradan waxay ka hadlaysaa dadka beeniyay oo mujazaha waxay kaloo ka hadlaysaa kuwa agoonta dhibayo oo xaqooda ka xoogayo ka dafcinayo iyo kuwa aan isku boorinin in masaakiinta la quudiyo iyo kuwa dukada inay halaag u sugnaatay kuwaas oo salaadooda qaafiliin ka ah ama waqtiga kadib dhigo iyo kuwa istutuso markay dukanayaan dadka iyo kuwa maacuunta dariska u diido kal ibriiqa oo kale iyo wixii la mid ah. waayahay qaala tacaala alla wuxuu yiri ara'ayta balka waran nabi muxamedow alladhi kii ka waran yukadhibu beeninayo biddiini yo mujasaha beenina. waxaad kaloo dhihi kartaa ara'ayta balka waran ayuha almukhaatab kan la hadlayo kitaabka ilaahay baranayo balka waran alladhi ki yukadhibu beeninayo biddiini jasaha beeninayo ii xisaabta aakhiro. mataqaara kaas haddii aadan aqoonin ilaah ayaa kuu sheegayo fadhalika kaas oo yo mujasaha beeninayo meesha maxaa ku qarsoon yaa fa'da wixii ka dambeeyo تقدير أياكو قرصون هو أياكو قرصون فذلك كاس أو يوم جسها بيننا يا هو أساقب الذي كيوي يدعو ريريبا يا اليتيم أغونت أيو ريريبا يا حقو ذي أيو كريريبا يا أو ولا يحض أنكو بورينين نفس ديسة إيو غير كيسبة على طعام المسكين مساكين إن لقوضيو مركا مسكين متقانا مسكين ومد شقيستو أو مشهر كأوقاتو إيو بيل كأوكبحينيو آنا نكفلنين dadkana wax ma weydiiso kariyo waxa la leeyahay waa shaqaysata ayaa la leeyahay kaas ayaa miskiin ah laakiin ma aha miskiinka midka irida soo istaagayo oo dhahaya halay kaalmeeyo ama hebelo wax isii midka dhahaya kaas miskiin ma aha marka fawailu lilmusallin waxay ku soo degatay sidoo soo saaray ibn Abbas munaafiqiinta ayay ku soo degatay oo marka ay dukanayaan yuraa'una almu'miniin mu'miniinta ayay tutusayaan bisalaatihim salaadoodii waa kaas waa goormee marka idaa xadaru markay muslimiinta meesha ay joogaan ay soo xaadiraan ويتركونها صلاة ويكتغيان إذا غابوا هدي كعيلان مؤمنين تكتغان أيغا مل أيقون أتاي أيجوغان صلاة ويكتغيان تا أي كسو دغتي سدو ابن عباس صاري مركا الله وحو يري فويل هلاك أما وادي جهنم وحو أسغنادي للمصلين كو دكانيو هاي انتان كدن بس هلاك أي أسغنادي الذين كوا سو هم أيغوبا عن صلاتهم صلاة دودي ساهون جاهلين كأهاين غافلين هالمامسن أما ساهون أي يؤخرونها عن وقتها وقت الذي أي كدب دغيان هاي قولد اللباد الذين كويبا هلاك أسغنادهم أيغوبا يراؤون يا ددك استوتوسينايو في الصلاة صلاة مركي دكانيان أو ويمنعون الديديان
الماعون ماعونتي سيدا جلمدة باقوليغا قاددا فرقيدada iyo wixii la midka hadiiday markay dariska ka soo doontaan intaas ayaa halaag u sugnaatay ayuu alla yiri bismillaahir rahmaanir rahiim ara'ayta balka waran alladhi kika waran yukadhibu bayninayu bid-diin yawm jasaha fadhalika kaas oo yawm jasaha bayninayu alladhi kiwi yad'u rerebaya al-yatiima agoonta oo xaqooda u diidayo oo walaa yaxuddu aan ku boorinaynin nafsadiisa iyo dadka kale ala ta'amil miskiin masaakiinta in la quudiyo fawaylun halagba lil musalliina kuwa dukada u sugnaaday fawaylun waadigi jahannamo ayaa lil musalliina kuwa dukanaya u sugnaatay alladhiina kuwa soohum ayaguba عن صلاتهم صلاتودي ساهون تبدغاي وقتيدي الذين كواسو هم ايغوبا يراؤون تدك استتصنايو في الصلاه صلاه دحديده رياء كدكنيو او يمنعون ديديان الماعون ماعونت الابتي او لكلا قادناي دريسك iyo diidayaan way ama waxa dhihi kartaa fawaylun halaak lil musalliin kuwa dukanaya ay u sugnaaday الذين كويبا هلاك سغنادهم ايغوبا عن صلاتهم صلاتود ساهون دبدغاي الذين كويبا هلاك سغنادهم ايغوبا يراؤون استتصنايا الناس ددك في صلاتهم صلاتودي او يمنعون الديديان الماء بسم الله الرحمن الرحيم سورة القريش سورة مدينة اي كسو دغتي آيات كدونا وا افر آيات وي سورة marka waxay ka hadlaysaa quraysh nimcooyinka ilaahay siiyay xagayga yaman ayay aadi jireen jilaalkana sham ayay aadi jireen waxayna u bixi jireen litijaarati ganacsi ay u bixi jireen ilaahay jidka ayuu ku aamin yeelay tuug dhaco iyo waxa oo jidka u galo ma arki jireen ilaahay amaanadooda ayuu ilaahay sugay waxa kale jiro dadkaas waxa lagu weyneyn jiray kacbada ilaahay ayaa lagu weyneyn jiray marka nimcadaas ilaahay siiyay yaa oo aad haysataan nimcadaas rabbiga idin siiyay darteedii yaa ku caabuda beedkan ilaahay rabbiga iska laha beedkan yaa oo nimcadaas idin siiyay caabuda yaa asagoo gaajo iyo cabsina idinka aamin yeelay بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش كعادة يلشديدة إيلافهم أي كعادة يشان وتأكيد أو مصدر إيلافهم أي كعادة يشان رحلة الشتاء حقايقة سفر كيسة أو إلى اليمن يمن وسفريان إيو والصيف جيلالك سفر كيسة ay sham u safrayaan sanad walba waxay u safri jireen marka oo lagu jiro xagayga yaman ayay aadi jireen jilaalkana waxay aadi jireen sham ilaahina jidka ayuu ku aamin yeelay waxa dhibah lama tusin waxa la dhihi jiray waa dadka kacbada deganaa oo u khidmayn jiray fal ya'budu ha'abudun rabb hada albayt baytkan rabbigiisa baytkan oo lagu ixtiraamayo rabbiga iska laha ya ساعوديده ha ku caabudeen alladhi rabbiga soo ad'ama quudiyay hum ayaguba min juu'in ay jaa'in hal ay gaajeesnaayeen wa aamanahum aamin yeelay hum ayagu way min khoofin ay khaa'ifin hal ay cabsanayeen wujida waa kaas ama waxaad leedahay alladhi rabbiga soo ad'amahum quudiyay min juu'in gaaja xageeda ka quudiyay wa aamanhum aamin yeelay min khoofin cabsi xageeda waa kaas ilaan waxay dadkaasi ka baqi jireen inuu jidka u galo ninkan la yiraahdo jayshul fiil ay ka cabsi jireen waxaafu jayshul fiil ay ka baqi jireen taas ay ka cabsi jireen liilaafi قريش كعادة يلشديدة إلى فهم أي كعادة يشان رحلة الشتاء حقائق سفر كيسة
أو إلى اليمن يمن أسفريين إيا والصيف أي ورحلة الصيف جيلال كسفر كيسة أو إلى الشام شام أسفريين فليعبدوا سيدا درتت فليعبدوا هعابدين رب هذا البيت بيت كان ربي جيسا الذي ربي قاسو أطعم قوديي هم أيقوبا من جوع أي جاعين حال أي قاجسنايين وآمن آميالي هم أيقوبا من خوف أي خائفين حال أي عبسانيين ساسو كفسر كرتا أما وحديه كرتا الذي ربي قاسو أطعم قوديي هم أيقوبا من جوع قاج حق ذكا قود وآمن آميالي هم أيقوبا من خوف عبس حق ذكا آميالي ربي قاسي هعبدين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفيل سورة مرودقة سورة تاني وحي كسو دقتي نيكا أبرها لدهايو ayaa wuxuu dhibsaday dadkan kacbada aadayo oo sanadka mar xajinayo markaas ayuu magaalada Sanca wuxuu ka dhisay kaniisad weyn ayuu ka dhisay si xajka looga joojiyo dadkii ay u soo xajiyaan kaniisada bedelka xajka kaniisada Sanca laga dhisay inay yimaadaan saas ayuu isku dayay nin u dhashay qabiilka reer Kanaano ayaa soo baxay wuxuu ku xaaray kaniisada ayuu ku xaaray markaas oo xaarkii wuxuu ku firjiyay meel walba ayuu ku firjiyay markaas Abraha ayaa loo sheegay Abraha wuu xanaaqay markuu xanaaqay ayuu wuxuu go'aan ku qaatay inuu kacbada aado uu soo jijibiyo kacbada Ilaahay markaas ciidan fara badan ayuu soo watay iyo maroodiyaal maroodiga ugu weyn waxa la dhihi jiray Maxamuud markii uu soo weeraray kacbada ay carabta meeshii joogtay ay ka kala carareen ayaa Ilaahay wuxuu u soo diray shimbiro oo macnaha afka iyo lugaha ku sitaan dhagxaan ku sito ayaa Ilaahay u soo diray taas ayaa lagu halaagay bismillaahir rahmaanir rahiim alam tara wa istifham oo ajab ah alam tara miyadan ogsoonayn ayuha mukhatab kala la hadlayo kitaabka alla baranayo ama alam tara miyadan ogeyn nabi maxamedow labadoo waa dhihi kartaa kayfa sidii facala uu falay rabbuka rabbiga bi ashaabil fiili asxaabta maroodiga sidoo ku falay maroodiga weyn Maxamuud ayaa la dhihi jiray ninkan waxa watay Abraha ayuu ahaa oo markaas boqor ka ahaa magaalada Yemen ayuu ahaa ninkaasi waayahay alam yaj'al miyuusan ka yeelin alle ay jacala uu ka yeelay كيدهم هجرتودي في تضليل وحلمي أو خسارة وأرسل ميوسن أصدرا الله سبحانه وتعالى وبأصدريه عليهم كركودا طيرا شمبيرو أبابيل أي كحكحة ما قرأتي شمبرها سو ترمي توريان هم كواسي أو أبره يعيد كيسة بحجارة دقحان أو من سجيل دوبة للدوبي وحين نقنيسا مد أدك أو هدي كوكو دعضو أو قفك أو دريميو فجعل ميوسن كيالين ألا ووبا كيالي هم كواسي كعصف بل مأكول إلا عني ميوسن كيالين أما مأكول إلا جفاي ساسو كالي marka sidaas ayaa loo halaagay abraha kacbada ilaaha ka difaacay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ka difaacay shimbirahaas ayaa lagu difaacay waa kaas bismillaahir rahmaanir rahiim marka suuratul fiil waxa waaye aayadkeedu waxa weeye 5 ma garata maka ayay ku soo degatay suuradatan oo suuradaha maka waxay ka hadlayaan ayay ka hadlaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim marka suuradatan waxa waaye 105 tartiibta quraanka waa bisinki 105aad way saasoo kale bismillaahir rahmaanir rahiim qala ta'ala alla wuxuu yiri alam tara miyadan ogsoonayn nabi maxamedow kayfa sidii facala uu falay rabbuka rabbiga bi ashaabil fiil asxaabta maroodiga sidoo ku falay ha miyadan ogsoonayn alam yaj'al miyusan ka yeelin alla uuba ka yeelaye kaydahum hagartoodii fi tadlilin wahlumay oo qasaartay wa arsala meeshan waxa dhigi kartaa hadaa doonto وأرسل الله الله وحو أصدري عليهم كواسي كركودا وأبرها يعيد الكيسي طيرا شمبرو أبابيل كوحكوحة شمبرها سو ترمي توريان
هم كواسي أبرها يعيدن كيسي بحجارة دقحان كتوريان أو من سجيل دوبل الدبيئة فجعل وحو كيالا الله هم كواسي كعصف بل مأكول إلا عنا وحديه كرتا وأرسل ميوصن أصودرا الله سبحانه وتعالى عليهم كركودا وأبرها يعيدن كيسي طيرا شمبرو أبابيل إكوكوح ها شمبرها سو ترمي توريان هم كواسي أبراهي عيدن كيسي بحجارة الأقحان كتوريان أو من سيتشيلن دوبل الدبيئة فجعل ميوسا كيين الله سبحانه وتعالى هم كواسي أبراهي عيدن كيسي كعصف بل مأكول إلا عني ها وبكيالي waxaa la yiri suuradan markay soo degatay 12 beri kadib ama 12 beri kadib ayaa nabiga dhashay sallallahu alayhi wasallam عشركان xiga ayaan ka anbaqaadi doonaa wabillahi tawfiiq wallahu a'lam bis-sawaab